given away. Here's Salah. Oh, what a goal! qisadina maanta waa xidiga reer Masar Mohamed Salah ciyaaryahanka kooxda Liverpool waqti xaadirkan qisaduna kuma saabsana xab ku dhashay iyo kooxu soo ciyaaray toona waxaanu ka hadlaynaa sababta dhabta guushiisa iyo magacan inuu yeesho ka dambaysa Jose Mourinho markuu Chelsea coach ku ahaa ayaa la weydiiyay sababta Mohamed Salah uu la soo wareegay 16 milyan oo euro maxay tahay waxa uu khaaska ku yahay ee uu ku doortay laacibkan waana safqadii ama heshiiska ugu qaalisanaa ee laacib Carabeed waqtiga lagu kala iibsado Jose Mourinho oo markaa Chelsea coach ahaa wuxuu ugu jawaabay waxaan ku doortay ma ahan qaab ciyaareedkiisa inkastoo xataa qaab ciyaareedkiisu wacan yahay laakiin waxaan ku doortay taas ma ahan markaas la weydiiyay maxay tahay daba sababta ku dooratay wuxuu ugu jawaabay waxaan aragnay dhaqankiisa iyo wanaagiisa garoonka dibadiisa macnaha garoonka dhexdiisa inta kaamaradu hayaan ma dhaqan wanaagsan oo ma akhlaaqad wanaagsan laakiin marka garoonka laga soo baxo xataa dhaqankiisa iyo akhlaaqadiisu wanaagsan yihiin waana sababta ugu la soo wareegnay 16 milyan oo euro dabcan marka laga imaado laacibtinimadiisa xirfadiisa akhlaaqada wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan waxa dadka lagu soo jiito ama ahan aqoonta taqaaniin xirfada taqaan sida doonta dad xariif u tahay aqoontaadu noo sareyso laakiin aanad aqoonin sida dadka loola tacaamulaa ma aanad akhlaaqad wanaagsan lahayn cid kula dhaqmi doonta ma jirto وكنو محمد صلى الله عليه وسلم نينو شيغي إن waxyaabaha u waaweyn aakhiro ama maalinta aakhiro jannada lagu gali doono ay kamid tahay xusnul khuluq akhlaaqada wanaagsan Mohamed Salah akhlaaqadiisa ayaa qayb aad u sareysa ka qaatay heerkan maanta joogay magacan uu leeyahay inuu soo gaadho muuqaalkan qiso kooban intaas uu nagu yahay fadlan haduu ku cajabay subscribe sar lana soo wadaaga asxaabtaada share assalamu alaykum